waxaan ku balan qaaday markii inaan ku yiraahdo qofka mulxidka ah inuu shakiyo maxaa keena maxamed waxa keena qofka mulxidkii markuu aaminsan yahay in adduunkan maada mooyaane wax kale aani jirin oo uu caqligeena iyo fikirkeena uu yahay shay maadi ah oo material ah oo ashyaada aan kamida wuxuu ku dhacayaa qofkii shaki ma waxa dhacaysa maadada shayada maatarka ka samaysan tusaale sodiumta iyo chlorine oo kale hadii aan isku nabo milix baa ka dhalata markaan isku daro milix baa ka dhalata hadii aan mar labaad isku daro milix baa ka dhalata 10 milyan oo jeer hadaan isku daro milix baa dhalata laana xorma mar ay wada tashanayaan oo oranayaan intaas oo jeer baa la isku keentay markan aynu bedel natiijadii ma jirto maxaa hagaya qawaaniinta sharciyada ilaahay adduunka u dejiyay ee laws of physics kala dhaah hadii marka qofkii uu iraahdo fikirkeeni waa mid maadadaas kamida marka soo dabcan buuga kuma jirto intan laakiin waa intii aan ku fahansiin rabay aan kan niqaash rabay waxa weeyaan markuu qofkii iraahdo ilaahay ma jiro fikirkeenani waxana waa materialka waa shayada da fikirkii buu xorriyada ka qaadaya oo waxay noqonaysaa sidaas labada atom ee la isku nabay ay natiijada ayna marnaba uga leexanaynin baan anigana fikirkaygani inaan maanta muslim noqdo maadaama kamid ah maadadaasi oo sida iyagu leeyihiin sidaa una ugu qasbanaa so no matter si kastood adigu ila hadashood ila xiwaartanto waxa xorriyadoo aan kaga noqon karo kaygiyo adiga ku tagi karaa ma jirto sida aynay shaygan maadiga ah ee kalaba aanu xor u ahayn inuu maanta waxaan milix ahayn u soo saaro maado la falgalaysa oo natiijada aan dhinacna uga leexanayn baynu noqonaynaa ta kale jirto waxa weeyaan ilaahay mid buu diiday ilaahay wuxuu diiday in caqligan isaga lagu dafiro so qofku inuu caqli sheegto ilaahayna dafiro meel ma soo wada gasho haddii tusaale aan ku siiyo waxa weeyaan caqligani qiimo ma yeelanay haddaanu ilaahay jirin waxaanu qiimo ku yeelanaynin haddii aanu nidhaahno caqligaanu ku wada doodno haynu bal eegno qofka mulxid ahaan caqligaagu halkeebaad sidee buu ku imiday tusaale haddii aan ku siiyo wuxuu ku odhanayaa isagu duruufaha isgedgedisaya iyo nolosha iyo evolutionka isbedbedelkaas ayaa ugu dambeyn inoo keenay caqliga qofka mu'minkaana wuxuu leeyahay waa caqli ka imiday ilaah yaqaanay wax walba cilmigiisii leh xuduudiisii ugu talagalay iraada caqligan insaan loo isticmaalo ka dambeeyay tusaale haddaan kugu tuso ahmiyadda ay kala leedahay waxa weeyaan inagoo maanta halkaa joogno computerku inoo furan yahay haddii fariini ii soo dhacdo oo gudoomiyihii jaamacadda uu ila soo hadlo yiraahdo biri tiisiskaagii baad soo jeedinaysaa diyaar garow hadalkaasi uu ii soo dhaco risaaladaasi maxamed ma u diyaar garoobi lahayd tiisiska inaad soo jeediso ha professorkii waa kula soo hadlay soo mahay wuxuu ku yiri biri scan soo jeedi tiisiskaagii fariintii waa ku soo dhacday dabcan yes maxaad risaalada u ajiibtay waxaad u ajiibtay waxaad ogtahay ninkan inuu yahay dhinkii kuliyadaada inuu yahay qof caaqila oo risaaladan markuu qorayo ujeedo ka lahaa ah inaad tiisiskii soo jeediso ereyadana dee intention iyo doonis u soo qoray yani rabitaan uu rabayo hadaf u ka lahaa okay marka waad ajiibi laakiin inagu saa u joogno 4 jiir oo ordaya hadday keyboardka dul cararaan oo isla risaaladii qoraan sida nasiibka isku ereeriyanayeen botonadii ay ku istaagaan hadalkaa micnaha la fahmayay ah bari maxamed oo camuud tiisiska ay ka soo jeedi haddii ay ku qoranto miyaad ajiibi lahayd risaaladu waa risaaladii laakiin maxaa midna qiimo u yeelay midna qiimo tiray duruufta ay ku timid soo marka uu caqligii iyo fikirkeennii uu yahay mid ku tiirsan oo ka imiday ilaah isagiiba caliim ah iyo marka la idhaahdo waa mid ka imiday meel aan waxba ogeyn oo dabiicadii ah oo iyadiiba caqli lahayn oo kala garanayn dab iyo dab la'aan waxay kala tahay ayaa kugu deeqday dee caqligii aaminaad ma mutaysanayo sida aanay aaminaad u mutaysnayn isla risaalo uu qoray jiir dul carcararaya meeshii si kastoo ay noqoto mid loo fahmi karo loo akhrisan karo haddana wax aad ku dhaqmi lahayd ood aamini lahayd ma aho dee tiisis uma diyaar garowdeenoo camuud maa tagteen iskama xadiriseen wax ma soo jeediseen ya leanna waad ogtahay aslan say ku timid inayna qasdi ayna jirin meeshan oo ay 40 jiiris eryaryanayan isla taa tusaale waxaa fahmaynin C.S. Lewis la yiraahdo masiixi ah marka niqashkan marka buugga ku jiro buugga waa soo gabagabeynay intaan aan ku gabagabeynaya marka sax uma baahan wuxuu yiri marka in caqligaaga aad mulxid ahaan aaminto
وترى عقلي كان وحكوا كلا صار عقلي كان إلهي كبينين يا ومد استيداء وواحد ويا وانين أنتو كوب كبيها أحقاضي دولك كده هذه يجدين عاي أقدر توا طريقي أي نكتة لهين لندن يعني نقول نحن ما أنت هرجيسة أي نتجنو هرجيسة الحين نجح حتى كوب كبيها أنت عادين هلكو أقدر يرى هرجيسين نجين كوب كم بيها قابك الرقم الدوني دقاب عقلي وافق ما هي وقاب كي كل بشر عجف سيسكوها وماشي هذا فرطو جرافيتي بتشيدن حدي وماشي يكون بدين ماشي يكون بدين شيء وكتجي ماشي يكون جراد هاجي معي وحاجي شرعي عن جراد يوحنا أنكو سلينين بهاجي وده شيء مال فرطة هذا تقول ضرره ده هالدي إنه نحن بس واقع هالكو ضرره هرجيس وحين يحتاج على ضرره سدا أنا دو آمن الهين بعقلي وكرسوني أنا مدني مرك وكمرين هي إله مرك إلهي حكمة ديسا واحد مودينه ديدي إنه قف عقل الشيكته وإسقنا وضفيره حتى أنا قف عقلنا لهين إلهي وحوم مدرسنا ما كلفين به والله يكون مرون مرك أنت